هو حبط حل لقوا ميري كرو كعان كبار لقيه هرتي حبط وشبه هذا اللي هجاجي وعدو الصوماليات إيه هجاجي كل الشبادية اللي تقال لي محمد سياد وربري السؤال اللي سؤال ربري الدستور كان هذا الجرو أو صوماليا كشغينيس ما هذا دستور أي صومالي كشغين كرت وكو أن قبل بتلنا يو معمول قبلات كا جافنر بالورن كلا لكن مدحوين لما ورن كلا you can't call him a president diyaaradaha ciidamada lagu keeno kuwa dhulka la soo mariyay qaarkood leeyahay xitaa meelaha ay joogaan qolyahan afka duuban baa la soo mariyay marka iyada oo 2026 la marayo oo la filayay in Soomaali dhibaatadii iyo dawlad xumadii ay ka baxday la filayay dadaal badanna arinta loo galay in maanta ay Soomaali isu hubgurato oo madaxweynihii dawladda federaalka iyo kii maamul goboleedka ay kala roonaan waayaan maxaa keenay وحكيني وحويا ودانا الشخصي الله يسكو هيستا دانا الشخصي الله يسكو هيستا واي كان هذا الكلام مرة ومس بود جريني حر سومالي ما كانت كان كرت سومالي ما كانت كان كرت معمول قولديها الكذب أهان لو فيريو خلدت بدنا كشرته معمل قولاتك ما أحد دولتك لو ماشي كجرته مدحوين أنت لو يري ياي حيد وانا سبعينيا ودم أجنبي اللي هشينيا وفرق أنت يجي نقنا عندك عين كاسي وخيراتك ودنك أي هشيس كل جليان ضد داريات وإذا ما أجنبي ما وكوهيان ما له هذي ويجي مارتين قرن كنا وصل رالي كهين قرن كان مدام الصوماليا أي قب إيو أنا تلني يمثلين كرتيد نما قصب كرتيد لو كلا جوري ما أنت نك الصومالي مودي إنه هب حل كهليو وخلط هب حبط حل أمريكا كعان كبار لقيه هرتي حبط وشبه هذا اللي هجاجي وعدو الصوماليات إيه هجاجي كل الشبادية اللي تقال لي محمد سياد وربري السؤال اللي سؤال ربري أصلا خير الله سيه وأبابلي تقرأ أساس بودجريني ما هي إريتريا أساس بودجريني حرية إريتريا وحكوماتي قرب استاجي الصومالية قرب استاجي الدون كنا كسور جدي iyagana way burburiyeen markay koox wadanka ay qabteen dadka isku yeereen nidaam bay u hagaajiyeen way wada socdeen mar dambe haddana ay kala boodeen oo Tigreeda ay damacday sida Yahuud oo kale ay iska dhigto hadda kale oo ka tarin karta geeska Afrika waa burbureen iyagana haddana marka qabka iyo hamuun magara hawadan waalan oo maamul goboleedyada istusayaan iyo dadka centerka jooga xamarna istusayaan laga yar fiican yahay marka anigu waxaan dhihi lahaa marka ka daaya stand down hawl ciidamaha u dirna meel adigana ciidan ajnabi ma keeni kartid Ethiopian lama keeni karo haddii Ethiopian ay soo galaan wadanka oo ay ku soo gelin ciidanka dawladda xamar joogtay معناها هذا حويان territorial مارتي integrity هذه sovereignty قطع يالو واحد قدي لعبنا ماشي جوجين يقول أنا ودن كأجنبي ما كسرية وأقول إيه حق هذا كان سما monopoly of fire power وحيانا كراكري دولة السنترك ما عمرك قبلك نولا شيء اقتصادي وكشغل كره ما حكمان بوليسيرو maintenance of law and order oo baabuurta maxay traffic iyo waxaan ka soo kale maintain kara laakiin ciidan kii qaranka ku hortagi in laga hagaajiyo gobolka waa khalad laakiin way dhacday waxaan baa loo nisbaynaya maxaa goboladan haatee gobollo qaran ma aha waa gobollo qabiil way fahamsama dastuurka markii inta lagu hagaajinayay يا وحوت تشدين لما وضن أولي جود عن ديار عن وهن إن صوماليا شرطت هذا سوى نقطة. واحد كويسين. وصوماليا هي كينيا. إيوه
nimankii galbeedka oo khayraadka Soomaaliya u sii raadsanayay oo labada gobol oo hadda ay kala qaybiyeen haati asalka iyaga ay u qaybiyeen oo iyaga ay ku hayaan salka waa Ingiriiska ilaha Maali marka dastuurkan hadda jiro oo Soomaaliya ku shaqeynayso ma aha dastuur ay Soomaaliya ku shaqeyn karto waa koow oo nin gobolka batalinayo maamul goboleedka governor baa la oran karaa madaxweyne lama oran karo you can't call him a president anaga hata we call them governors yeah hada dib baa naga haysta iyo governor lagu yeera ay awood ay isbideen iyo say ugu takarfulayaan xoolihii dadweynaha loogu talagalay yaan caadi ahayn kuwa hadii madaxweyneba loogu talagalay lagu yiri bal hadii ii sheeg wadanka adduunka hadda oo maamul goboleedka madaxweyne loogu xukumay lagu yeeray waad maqashay they don't call them presidents waxa Ethiopia keen Ethiopia oo markii iyadana danteeda ay leedahay oo dad aan shaqo isku leeyahay Tigray maxay Abyssinians Oromo Somali Benishangul Martalki Gumus iyagoo kala fog Afar shaqo isku leeyahay way hagaajisteen midda dambe ahayd maxaa nimankii amxaarada oo xukumi jiray oo gumaysan jiray oo madaxan kale oo dhan qoomiyadahan kale oo dhan iyo meelas uu rabay inay ka xoroobaan laakiin dad isku qabiil leh oo isku luqad leh oo isku diin leh oo isku suurad leh oo isku madhab leh in la yiraahdo gobolkan madaxweynaha gobolka danta laga lahaa waxa weeyaan dhibaatada hadda dhacaysa inay dhacdo waana ku guuleysteen hadda meelas dhamay laakiin suntii uu aasay oo kamid ah dadka aasay ilaa hadda wayna haystaa wadda Soomaaliya haystaa marka anigu waxaan oran lahaa hal isku tanaasulo dastuurka hal la bedelo dastuurka is not supposed to serve ninka markaa ku jiro dastuurka waa posterity horta waxaan madaxweynaha maamul goboleed leeyahay magaca hal la saaro governor ha noqdo sidii maxay Nigeria iyo wadamaha kale oo dhan all this ka meelahan ay wada haystaan ma chief wax aan ka saaran jiray adiga sama oo waliba dadkaasayto ay dad kala duwan yihiin dad aad u kala duwan marka anu hadda kaasa ma aragtay sax ma dhahay mid kasta eeda badan buu leeyahay mid kastana maxay ahayd waxoo yar yar oo ku saxan yahay laakiin wixii raad ku saxneed wax ka weyn looma dimin karo wadi fahamtay soo wax ka weyn guriga looma dimin karo hadda adiga meeshan aad tiraahdo war koob shaah ii keeno koob shaah baan u baahanay oo koob shaah lagu keeni lahaa ma guriga sabaar ku dhufan ma idhe waa laga gardaran yahay oo laguma keenin wixii raad u baahneed laakiin inaad guriga burburisay gebigiisa ma ahayn marka in wadanka la burburiyo meesha arrinta kuma jirto waxyaabaha la isku haysta wax laga wada hadli karo ana waxaan leeyahay yaana lagu degdegin gacan ka hado dowladda inay ku degdegin maamul goboleedkan inay ku degdegin dastuurkana hal la bedelo maamul goboleed ciidan military ma yeelan karo centerka ciidanka militariga leh militarina waxaa loogu talagalay national defense wadanka qaranka in la xuduudiisa la ilaaliyo oo cadow ku soo duula laga ilaaliyo ajnabi looguma talagalin inay iyada isku duusho waradi maqashaa soo ma hadday ka fursan weydo oo dhibaato xad dhaaf ay dhacdo oo wadanka gudihiisa ay tahay baarlamaanka intii la mariyo waa la dhihi karaa ciidankii qalabka siday national defense forces ka ha lagu commit gareeya an internal maintenance of law and order arrin gudaha oo maaragtay kala dambeynta dadka iyo sharciga lagu ilaalinayo dadka baa isku kala kacay walisti baa kari weyday waday kartaa military laakiin ma dhacdo badan halka 50 sano 100 sano markuu ay dhacdo waday fahmtay soo ma marka dastuurkii baa khaldan maamul goboleedihii baa khaldan maxay iska dhigeen dawlad dhisan oo madaxweyne oo kan ay la tartamayaan kii xamar jooga la tartamayaan waday fahmtay soo ma waan ka diiday ma yeelay ba qaran kale which is wrong very wrong very dangerous aad bay xun tahay fahmtay soo iyagana waxa loo baahan yahay in dastuurka intii la saxo meel badan laga sax badan isku sax markii la isku keeno la yiraahdo okay system horta la bedelo waxaan la leeyahay madaxweyne maamul goboleed has got to be removed waxa keenay meelas baa keenay ana ka soo horjeedno wala no you can't work that way meelas iyo dad kale oo aan magacooda sheegin ay ka shaqeeyeen sidana la isku haysteen rabeen sidan markii 4.5 la oranayo oo gabigeeda maxay ahayd dadka la oran jiray reebel baa inta la oranay
danta laga lahaa inay Soomaali isku imaanin bixit Soomaali meel kasta ay degantay Nairobi haddaan deganahay marka ugu yarta 500 kuma ku deganay Nairobi oo Soomaali ma reebel baan qabnaa reebel ma you just call us Somali baa lagu leeyahay Donald Trump uu qaylinaya oo ka calaacalaha Soomaalida Mareykanka joogtay asaga oo ka xun dadaalka ay sameeyeen qiimaha iyo sharafta ay joogaan oo meel kasta ay galeen oo Congress-ka ay ku jiraan yaa wuxuu isleeyahay dadkan madowsay ku heleen maxay ahayd isbedelka noocan oo kale muddadan ugu yartaa ay ku heleen waa racist laakiin Soomaali buu leeyahay Somalis buu leeyahay ma laha nimankan digil iyo mirifle ma laha nimankan hawiye ma laha nimankan daarood ma laha nimankan isaaqe no I found some you just have one identity midda kale in dadka la isdhex dagaal rabaa Soomaaliya isku dhex qasbata san Nairobi ku isku dhex qasanay waad gartama isku dhex qasanay ee gaarso kale gaarso lagu wada nool aad baa lagu wada waa magaalada Nairobi marka laga tagay iyo waxaan jeclahay jigjiga waa magaalada most integrated Somali town ay tahay waa gaars city cid Soomaalidu ku arkeen mar oo aan deganeen oo ku nool walaalnimo iyo wanaag baa lagu wada nool ana kaalay ana waxa warkeeda ma jiro wada faantay Sooma Nairobi hadda la kala leeyahay dad kale maartay Kenyaanka kale inay naga cabsanayaan oo naga qabaan maxay sas naga qabaan waa way dhacdaa saska maxay naga qabaan aad waan durdurinaynaa aad baan u durdurinaynaa marka waa inaad ogaataa meesha adduunka ku joogo meesha dadkaada kala joogaan meesha inaad dhaxal ahaan uga tagto la rabo markaad adiga madax tahay wadi fahamtay Sooma kaliya ma aha Xasan Sheekh Maxamuud iyo lafta gareen iyo ragga kale maamul goboleedyada Deni iyo Axmed Madoobe iyo maxay qorqor iyo maxay Gudlaawi iyo Cabdiraxmaan Ciro inay ku xisaabtamaan that internal very marti basic waxaan yar oo dhaxdooda inay ku xisaabtamaan maaha say Soomaali adduunka ay wax ugu noqon lahayd yaa loo baahan yahay markay Soomaali wax ku noqotay Kenya Tanzania Uganda Europe Mareykanka meel kasta awood aan ka helno waxa ku astaa ka shaqada Israa'iil waxa gacanta ku haya waa yahuudda adduunka ku nool caalamka ku nool yahuudda caalamka ku nool weeyaan marka maadaama iyagii ay isku dhex qasan yihiinba iska daa kuwii dibadda joogay oo maartay la kasban lahaa kuwii dibadda joogo iyagana midnimadooda ka shaqayn lahayn waxbaa naga maqan we have what it takes to become the most integrated the most prolific business iyo education iyo wax kastoo dhan ba geli karaan iyo politics adduunka annagoo oo u baahannahay marka centerka xamir joogta inay si kaalmayso dadka dibadda jooga si fahad dhow iyagana u kaalmayaan macna dib bari aad hesho wasiir Ingiriiska ka hesho Canada waan ku haysana wasiir Congress ku haysta Mareykanka Finland baad ku haysta MP Sweden malaha soo dhan markaa hesho dad isku xiran sida yahuud oo kale oo hal identity la aad hesho arrimaha isku tabadacayaan laakiin wixii hawada siin lahaa waay yahuudda hadda marka adduunka waxay ku firartay marka lagu laayay meelihii ay joogaan ka kala carreen waad garsooma marka Andalus lagu laayay iyaga caalamka islaam bay ku dhex noolaayeen oo ay ku laayeen gaalada ay ku kristaanka ku laayeen iyo adduunka ku kala firareen and now waxa weeyaan the power that maintains the state of Israel wa AIPAC lama yiraahdo American Israeli whatever committee oo siyaasadda anaga waxaan yeelan lahayn Somali community Mareykanka Somali community Canada every state kastaba Australia Brazil meel kasta ma gartaa halkii Ecuador way degan hadda Ecuador Bolivia Paraguay Uruguay kulli Soomaali baa degan oo bixisir ka sameeyaan oo markii hore u socdeen maxay tahriib inay darbiga ka boodaan Mareykanka meelay socdeen markaa ka war meeshan baa la qabsan kartaa oo bixisira leh anaga xawaladoon ma ahayn xawlan ku helan oo sharci ka qaateen wadanka oo degay speakerkayga ayaan mandate wada hadlayna sheekaysanayna Barbados butay عاصمة Barbados ونجعل إذا الله Barbados مطعمك أوقف عن أول يقان أول أسكوت تجو لو إنه صومالي ولا بيقولوا صدقني صومالي بسكري فهمت الصبا أولي بكينيا مرينا نفس هاي لكوا الله صومالي كين ماذا حوتنا وكسنت بصمرين مركا ورط وحنا أمد رنتي
ilaahay uu siiyey heybad ay wax ku noqon karaan. All we need to do is inaan ku translate garayno wixii what we're able to achieve at the individual level and now we do it at the collective level. waad fahamtay soo haddii la waayo xataa horumarkan aan gaari hayno oo hadda Kenya iyo meel kasta aan gelino we will become our worst enemy. fiira ku sheegay bay kala ku sheegay haddii isku xirnaanta la waayo haddana anagu daan kor u kacno ma haddana dhulka dhigalina